waxa aan safar ku tagay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool anigoo ka soo kicitay dalka Turkiga dhibkii dhacayna aynu wada ogeyn dhamaanteen waxaan u tagay markii aan kulanay madaxweynaha iyo madaxdii kale ee dalka bilan xogaal u noqdo xaaladda ka jirta magaalada Laascaanood iyo inaan xog dhaba aan la wadaago madaxweynaha taasaanan hadda la imid oo inaan warbixin iyo xog isweydaarsi madaxweynaha aan kula soo noqdo runtii waxaan aad iyo aad madaxweynaha iyo dawladda uga mahadnaqayaa in tala soo jeedintii ahayd in ciidamada magaalada gudaheeda laga saaro si loo yareeyo dhibaatada loona ilaaliyo dareenkii shacabka ee kacay in sida ay ahayd ay u fushay ilaa iyo hadeerna arrintaasi ay keentay guul weyn runtii aanay dhicin wax dhibaato ah oo cusub marka laga reebo intii dhacday maalmihii hore waxa kale runtii iyana arrimaha aan u tagay kamid ahayd meesha in maadaama uu jiray kacdoon iyo dareen shacab baaqna uu jeediyay jaamac garaad Ismaaciil oo in garaadadii dhulbahanta ay isugu yimaadaan magaalada Laascaanood in arrinta laftigeeda sidii ay u hirgeli lahayd si nabadgelyo ah dadkuna taladooda loogu madax banaaneyn lahaa oo ay u tashan lahaayeen iyagu wax culays iyo furfur iyo dhibana aan cidina u geysanin oo iyaga taladooda loo madax banaaneeyo oo aan u dareemin marna muxuu ahaa riixis iyo gacan bidixayn aan u dareemin runtii taasina si wanaagsan bay u dhacday oo qayb weyn ay ka ahaayeen ciidamadii deegaanka u dhashay ee joogay magaalada oo ilaa hadeer amniga magaalada ee gudihiisa gacanta ku haya ilaalintii iyo maxaan raday dhowristii madaxdii dhaqanka ee dadku lahaa iyo milgahoodiina qayb weyn ka qaatay iyagana mahad gaar baan u jeedinayaa waxaan rajaynayaa shirkaas hadda u socda ee isimada iyo cuqaasha iyo aqoon-yahanka culimada iyo waxgaradka inuu noqon doono shir midho dhal ah oo wax dhib ku ah dalka iyo dadka midna aanay ka soo bixin waxa muhiim ah oo runtii talada anigu aan kula soo noqday madaxweynuhu ay tahay in dadkii taladoodii ay u fadhiyeen iyagana aanan ka filayn wax dalka iyo dadka dhib ku noqda aanan ka filaynin oo ay tahay marka koowaad inay iyana taladooda u madax banaanadaan marka labaadna ay wixii kacdoonkan midhihiisii la helo ayna ka dhalanin dhib ka weyn iyo xumo dalka iyo dadka midna gaara aanay ka dhalanin waxaan rajaynaynaa waxa ka soo bixi doona shirarka ay isugu yimaadeen beeshu oo muddo dheer aan dhicin in magaalada Laascaanood ay isugu yimaadeen oo aan hubay inay dareemayaan inay hadda taladoodiina gacanta ku haystaan cid hadda culays iyo saartayna aanay jirin siyaasadda dawladuna ay tahay inay iyagu wada tashadaan dawladuna ay diyaar u tahay mar walba ay diyaar u tahay wada hadal wax alla aan shuruud lahayn oo wax shuruud ku xidhnayn wax walba in laga wada hadli karo oo shacabka iyo madaxda dhaqanka ee deegaankaasi lagala hadlayo wax kasta oo ama tabasho ha noqoto ama haba ka weynaato arrimo masiiri ha noqotee inay dawladdu diyaar u tahay baan halkan rabaa inaan ka cadeeyo runtiina madaxweynahana taasaan kula soo noqday taladaas oo ahayd inaan soo dhaweeyo sidii ama approach-ka ay qaadatay xukuumaddu iyo madaxweynuhu u qaateen aan soo dhaweeyo runtii madaxweynahana waxaan kala kulmay soo dhaweyn fiican oo ahayd in go-aankii hore uu qaatay uu ku soconayo oo ah in ciidamadu ay dibadda ka joogaan magaalada loona madax banaaneeyo bulshadu inay shirkeeda ay qabsato wixii ka dambeeyana wixii wada hadal iyo tala ay ka soo baxa uu mar walba diyaar u yahay inuu dhinaca wanaagsan ka istaago waxaan rajaynaynaa sidaa u dhici doono